واو إنaba caadi maaha maasha allah tabaaraka allah waad ka heli doontaan runtii haddii aad sidaan u samaysato bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaama kheyrta sharafta le meel kastoo dunida dacaladeeda iyo daafeeda aad ka joogtaan ugu horreyntii ugula salliya xabiibkeena maxamed suubanaheena sala allahu calayhi wasalam cimri dheer iyo cibaado suubaniyo caafimaad qab ku waara meel kastood ku sugantihiin nimaayo baraaran idin rajeynaya waa maanta iyo muuqaal cusub maasha allah waad ka heli doontaan xaqiiqdii aad nagu idin cajabin doonaa waanad soo tijaabin doontaan hadduu ilaahay idmo maanta muuqaalkeenna uu ka duwan yahay muuqaaladii hore muuqaal aad u qurux badan weeye muuqaal fudud ama video aad iyo aad u saqiran oo waqti badanna kaa qaadanayn runtii inaad wax karisana aan kaa doonayn weeye ugu horreyntii intaanaan guda gelin samaynta muuqaalkeenna haddaad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan subscribe noo saar gambaleelka furasay kuusoo gaaraan fideoyada aan soo gelino dhammaantood ay gurigaaga toos kuugu yimaadaan adoon meel ka raadin adoon magac qorin mar walbo aan soo gelino uu toos kuugu soo dhaco akoonkaaga telefoonka haddii aad horey noola joogtay waxaan idin leenahay aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad fideogan u sheer garaysaan aad u daawataan like-tiina kommentiyadiina caafimaadka qabo quruxda badan run ahaantii waa idinkaga mahadcelinayaa allah idin xifdiyo ilaahina ha idin barakeeyo intaad jeceshihiin in lamida ayaan aniguna idin jeclahay insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa wax badan inaan kala faa'iidno sidoo kale waxaad soo booqataa tiktokeena haataaka 20 oo aad ka soo faa'iidi doonto wax aad u badan run ahaantii videogeena ayaan bilaabanaynaa ugu horreyntii waxaan haysanaa hal xabo oo cambe ah hal xabo cambe baan haysanaa cambaha waa kala jaraynaa allahumma salli ala maxamed kadibna sida dheerdheerkii gaagaabka ayaan u jaraynaa si aan inta maqaarka ama diirka aan isaga tuurno inta kale oo gudaha ku jirta ama hilibkii intaan u baahanahayna aan uga isticmaalno marka qaadaa soo qaatay saxan baan soo qaatay cambaheena ayaan meesha saxanka ku shubanaya dhammaantiis cambaha saxanka ayaan kusoo shubanaya runtii videogan waa uu saqiran yahay waqti badanna ma qaadanayo wax la karinayana ma ahan waa keeg aad gurigaaga ku samaysanayso adoon foorne iyo dab midna gelin adoon burjo ka saarin markii aan soo diyaarsano cambaheeni digsiga ayaan soo qaadanaynaa digsigaan ku shubaynaa sidoo kale waxaan ku darsanaynaa 2 qaado oo sokor ah sokorta haddaad jeclayn wax yar oo malaba ayaad ku darsanaysaa laakiin sokortu hadda inaan isticmaalno waan u baahanahay sidoo kale vanilla ayaan ku darsanaynaa ama carfiso waxaad ku darsan kartaa booskaas hayl shiidan dabkan saaraynaa waana burburinaynaa cabaar yar baan shiilaynaa ama aan dabka u daynaynaa waa burburinaynaa kadib waxaan soo qastay hal qaado oo waranga ah hal qaado waranga aan soo qastay qaadada warangada ayaad ku daraysaa allahumma salli ala maxamed warangada marka hore si fiican u qasti aysan kaaga fariisan ama aysan kaaga dhigin jablin dhanaanana waan ku miiraynaa si dhadhanka uu isku bedelo oo macaan iyo dhanaan isku jira uu noogu noqdo hadduu ilaahay idmo macaan kaliya haddii ay wuxuu yihiin waa lagu yara dawaqaaya ama qofka wuu dhibsan karaa hadda markii aan soo diyaarinay baaquligan ayaan soo qaadanay waan burburinay laakiin aad uma burbursano oo ma ahan liisho ma noqon marka waa ka gadisanaynaa baaquligan ku gadisanaynaa si aan dib haddii ilaahay idmo aan ugu isticmaalno ama aan sida kale qaybta dambe aan ka guda geli doono gadaal ayaan ayada u dhiganaynaa insha allah intaan hawsha kala qabsanayno asaga halkaan aan dhiganaynaa meeshaas ayaan ku daboolanaynaa meeshaas aan ku dabooshay saxan ayaan haddana soo qaatay sidoo kale buskudkii aan isticmaali lahaa baan soo qaatay buskudkaan isticmaalaynaa saxanka waxaan ku shubanayaa caanihii aad rabto ayaad ku shuban kartaa caano boore aad qastay ama caanaha caadiga freshka ayaad saxanka ku shubanaysaa kabacdina buskudkeeni ayaan ku dhex guraynaa ama hal u geli ama ku wada gur adiga ayaa qiyaarka iska leh laakiin muhiimadu waxa weeyaan buskudka in caanaha lagu dhex rido labada dhinac baad ugu gedinaysaa kadibna saxanka ayaan ku soo safaynaa buskudka caanaha marka aad ku dhex rido ha ku ilaawin ama waqti badan ha u deyn sababtoo ah waa buskud uu qoyahay uu ka kala daadanaya haddii aad waqti badan u deyso caanaha sida ayaan ugu soo wadaynaa dhowr xabaan ku ridayaa hal mar kabacdina dhaqso ayaan ka gurayaa markaan labada dhinac ugu rogo si aysan iiga kala daadan uusan buskudku iiga burburin ama iiga halaabin sidaasaan kusoo wadayaa ilaa aan saxanka kusoo dhammeeyo saasaan ku wadayaa
marka adigana sidaas oo kale u samee haduu Ilaahay idmo kabacdi markaan sagxadda saxanka ku dhamayno geesaha ayaan haddana aan kaga safaynaa aan ka taagtaagina dhinacyadan kaga taagtaagina dhinacyada markaas sidaas oo kale ugu soo dhamayno kareemkii aan marsan lahayn ayaan qasanaynaa kareemkaan aan soo qaatay kareemka baaquliga aan ku shubanaya laba kareem ayaan isticmaali doonaa haduu Ilaahay idmo sidoo kale kareemkan qaybtan kale ayaan asna isticmaalaya hadii Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo isticmaali doonaa condensed milk ama caanaha macaan ayagana waan isticmaali doonaa insha Allah wax yar ayaan ka isticmaali doonaa haduu Ilaahay idmo sidoo kale waxaan isticmaalaynaa wax yar oo sokor ah hal qaado xataa aan dhamayn oo sokor ah isticmaalaynaa Allahumma salli ala Muhammad inta ayaan isku qasaynaa qaadada marka hore isku la qasaynaa kadibna mashiinta ayaan soo qaadanaynaa waa isku garaacaynaa waxaan hadda ku daray waa condensed milkigii ma badna wax yar ayaan ku daray waanad badsan kartaa hadii aad condensed milk ama caanaha macaan oo badan aad ku darayso waa inaadan wax sokor ku darin haduu Ilaahay idmo hadii aad labadooda xoog iskula darto sokorta ayaa kaaga badanaysa ama macaan zaid u ka noqonaya marka si uusan macaan zaid kaaga noqon waa inaad ama wax yar kaga darto ama aad hal mid isticmaasho markaan kareemkeeni aan garaacno oo si fiican u garaacno oo qasno sida noqdo diyaar weeye hadda kareemkeeni ma sha Allah inaba caadi ma aan runtii wakaas waa diyaar hadda kareemka marka waxaan sameynaynaa insha Allah taala buskutkeeni noo diyaarsana oo saxanka ku jiray ayaan korka ka marin doonaa insha Allah oo dusha kaga shubi doonaa kareemka ka bacdina waan ku fidfidin doonaa ama geesaha dhan ayaad kaga shubaysaa oo ku soo simaysaa si uu kareemku u wada gaaro buskutka marka saa ugu soo dhamayno ayaan waxaan sameyn doonaa qaybta kale ayaan haddana dusha ka saari doonaa kareemka buskutka intiisa kale ayaan ku guraynaa dusha ayaan kaga simaynaa haddana markaan saa dusha haddana kaga sino kareem ayaan haddana dusha ka marinaynaa mar labaad markaa kareemka saa ugu soo dhamaystirtid ayaan waxaan sameynaynaa haddana Allahumma salli ala Muhammad qaybta saddexaad ayaan usii gudbi doonaa hadda laba dabaq ayaan isdul saarnay labada dabaq mid walba waxaan dhex gelinay aan ka kormarinay dabaqii hore hoose markaan saarnay kareemkii baan ku xijinay kii labaad markaan saarnayna kareemkii baan ku xijinay hadda kii saddexaad oo u dambeeyay ayaan saaraynaa asagana maxaan ku xijin doonaa asagana bal waxaan ku xijin doonaa way noo dambeeyaan laakiin waa ku safaynaa asagana ama waa ku simaynaa markii aan saa ugu soo dhamaynay waxaan soo qaadanaynaa cambaheeni noo diyaarsana cambaha ayaan shiidaynaa blenderkan gacanta ayaan ku shiidaynaa soft markaan ka dhigano ama sidaas aan ka dhigano Allahumma salli ala Muhammad baleenka aan ka dhigano kuskuski aan ka dhamayno ayaan asaga dusha kaga shubayno ugu dambeynta waxaan dusha kaga shubayno waa cambaha ayaa u dambeeya ama u koreynaya si uu noogu noqdo saddex kalar oo mid uu buskudki yahay midna uu kareemki yahay midna uu jaalaha yahay oo cambihi yahay saddexaas kalar buu noo noqonaya hadii Ilaahay idmo runtii aadna ugu qurux badan yahay aadna waa uga heli doontaan haduu Ilaahay idmo furunjeerka ayaan gelinaynaa furunjeerka wuxuu ku jiraa 1 saac ilaa 2 saac inta u dhaxaysa kadib markii aan soo bixinay ma sha Allah asagoo adkaaday isqabsaday kareemadii labadii kareem oo aan sameynay iyo Allahumma salli ala Muhammad buskudkii oo caanihi intuu ku jilcay dhinacna caanihi kaga jilcay dhinacna kareemkii kaga jilcay oo isku dhiimay oo asaga dhan aad u malaynayso doolasho ama keeg la sameeyay waa kana markii aan ka soo bixinay furunjeerka waa goynaynaa bismillaah Allahumma salli ala Muhammad quruxda iyo runtii carafta midna ma malayn kartid saxanka ayaa soo saaranay kaala iska arag indhaha wixii ka deeqa ayaa waxa la yiri uurkana ka deeqa wuxuu hadaysan marka hore ma indhaha ka qancinin dee uurkana kaama qancinayaan oo calooshu ama qalbigu kuma degaayo kuma xasilaayo laakiin markii ay indhaha ka deeqaan wax walba ay uurkaaga iyo calooshaadana deeqayaan oo anfacayaan marka kaala iska arag way waa ujeedana saxaabay soo tijaabi adigana run ahaantii waad ka heli doontaa waqti badanna kaama qaadanayo waana wax fudud hadaad dadku soo dhaweynayso hadaa casriye ka dhiganayso hadaa ilmahaaga iyo gurigaaga iyo familkaaga macmacaan ugu sameynayso hadaad rabto inaad cid waqti kula qaadato kaala iska arag weeye soo u go'ayo fiiri inaba caadi ma ahan goyn xataa kaama rabo fargeetada saa u dul saar weeye kadibna bismillaah ma sha Allah tabarakallah ala macaan badanaa keegeena ama macmacaankeena run ahaantii caadi ma ahan waanad ka heli doontaan waxaan rajeynayaa inaad soo tijaabin doontaan falcelintiina commentiga ayaan ka sugayaa mar labaad waxaan idin xasuusinayaa inaad subscribe soo dhahdaan kanaalkeena ama channelkeena ama youtube-keena
Faa'iido TV 18 wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa insha Allah. TikTok naga soo follow gareeya haata ka 20 ayaa TikTok noogu qoran naga soo follow gareeya. aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawashadiina iyo la socodkiina.